hay-adda caafimaadka adduunka ayaa warbixin ay soo saartay salaasadii 13 Noofembar waxa ay ku sheegtay in sanadkii 2018 ay 800,000 oo carruur ah dunida ay ugu dhinteen sababta caabuqa ku dhaca kiishka neefta ee sanbabada, taasoo celcelis ahaan ka dhigaysa in ilbiriqsi kasta uu ilmo yar adduunka guudkiisa ugu dhinto xanuunka oof-wareenka oo ah cudur la daweyn karo isla markaasna laga hortagi karo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ee UNICEF iyo hay-adda badbaadinta carruurta ee The Save Children iyo hay-ado kale ayaa warbixin ay xanuunkan kaga warramayeen oo ay u bixiyeen cudurka la ilaaway. waxa ay xukuumadaha dunida ugu baaqeen inay kor u qaadaan maalgelinta tallaalka lagaga hortegayo cudurkan iyo adeegyada caafimaad iyo daweynta la siiyo cudurkan dadka uu ku dhaco. inkasta uu yahay xanuun si fudud loo aqoonsan karo, loo daweyn karo, loogana hortegi karo, haddana weli waa dilaaga ugu weyn ee dhallaanka adduunka. oof-wareenka waxaa sababa bakteriya, fayrus ama fangi ku dhasha kiishka neefta ee sanbabada, waxaana lagaga hortegi karaa tallaal iyadoo qofka uu ku dhaco lagu daweyn karo dawooyinka antibiyootiga ah ee hadba xaaladdiisa ku habboon. iyo marka xaaladda bukaankaasi ay adkaanto oo la siiyo oksijiin. xanuunkan oofta oo sida oo kale dhulka Soomaalida looga yaqaano kolba-aariya waxa uu ku badan yahay dalalka faqiirka. carruurtii sanadkii 2018 dunida ugu dhimatay xanuunkani kalabar waxa ay ka soo jeedaan dalalka Nigeria, Hindiya, Bakistan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo iyo Itoobiya, waxaanay ahaayeen dhallaan aanay badankoodu 2 sano gaadhin. Kevin Walknis oo ah agaasimaha hay-adda badbaadada carruurta ee The Save Children ayaa sheegay in carruurta 5 jir ka yar ee adduunka sanadkii ku dhinta 15% ka mid ah ay u dhintaan sababo la xidhiidha oofta. haddana xanuunka sidaasi khatarta u ah uu ka helo celcelis ahaan 3% keliyata dhaqaalaha adduunku uu ku bixiyo cilmi baadhisaha iyo tallaalada xanuunkaasi lagaga hortegayo ama xanuunada guud ahaanba lagaga hortegayo.